aniga waxaa la yiraahdaa Cabdifataax Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magacaygu waa Nimco Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan magacaygu waa Tufaax Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed waa hubaal in Soomaalida bartankeeda si weyn looga yaqaano magaca daraawiishta iyo hogaamiyihii gumeysila dirirka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Allah ha u naxariistay sayidka oo noolaa sanadihii 1956 ilaa 1920 ayaa waxa Hargeysa soo gaaray qaar kamida tafirtiisa oo muddo ku noolaa dalka dibadiisa Abwaan Maxamed Bedel xildhibaanada kala Mubaarak Sacad Muuse iyo Mukhtaar ayaa soo dhaweeyay qoyska sayidka Axmed Saki marka hore waad mahadsan tahay magaalada Hargeysa waxaan ku soo dhaweynaynaa dhashii daraawiishta marka hore waxaan leenahay soo dhawaada waxa garabkayga taagan Cabdifataax Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa ku sii xigta iyaduna ubax Yusuf Cilmi oo iyaduna reer sayida waxa ku sii xigta Tufaax Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa ku sii xigta Nimco waa Nimco Sayid Maxamuud Sayid Cabdikariin Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa dhashii sayidka oo socota waxaan leenahay horta magaaladu waa magaaladiinii sayidku wuxuu ahaa astaantii halganka waxa kaloo ahaa astaantii af Soomaaliga waxa kaloo ahaa astaantii diinta lama soo koobi karayo marka waxaan leenahay magaalada qariib kuma tihidin soo dhaweynta dadku maan doonaa inaanu barree magaaladu waa magaaladoodii taariikhda Soomaaliland marka laga hadlayo daraawiishta laga soo bilaabaa marka soo dhawaada waxaynu ka wada qayb qaadan doonaa insha Allah sidii aynu u dardargelin lahayn taariikhdii daraawiishta taariikhdu way qoran tahay laakiin waxay u baahan tahay in laga faa'iideysto in jiilasha soo koraya la baro in laga daba tago waxa kale oo iyaguna dayactir u baahan goobihii daraawiishta oo taleex ugu weyn tahay burburkii dalka ku dhacay baa saameeyay marka daraawiishtu halkaasoo kaliya may deganeen hadaad bari u kacdo waxa jira ilaa jiidali waxa jira goobo ay ku lahaayeen beero wax soo saar bay lahaayeen xagga halganka oo kaliya ma xataa ilbaxnimay lahaayeen waxbay beeran jireen waxbay dhoofin jireen waxaan u baahannahay marka dhammaan inaynu jiilasha oo dhan barro ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogaane waa taariikh dhaxal oo la wada leeyahay waxaan u baahannahay inaynu halganka uu sayidku inooga tagay innaga halkii joognay dabku shiday darwiishkii inaynu dogobya sii saaro marka soo dhawaada runtii maanta waxa weeyaan waa maalin aad u farxad badan oo taariikhi ah qoyskii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo runtii denin taariikh weyn ku leh Soomaalida oo dhan iyo muslimkaba sida doctiin wuxuu ninkii ugu horeeyay ee isticmaalku dayarada kula dagaalamo markuu wadankeenan ay maaragtay qabsadeen marka sayidku halgan fara badan maanta aan inagu dadkeenan muslimku iyo islaamku ku noolnahay ayuu hormoodi noogu noqday waxa weey runtii meel farxad leh qoyskiisii iyo duriyadii ka soo jeeday inay maanta magaalada nagu soo booqato anigoo ka hadlaya afka golaha wakiilada aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa runtii waa farxad leh gobol ahaan anagoo gobolka Sanaag soo taagan oo reer Sanaag ah oo reer Argaaba ah sayidku taariikh far badan buu nagu leeyahay marka waanu soo dhaweynaynaa runtii dadka kalena waanu ka xigsanaa runtii oo sayidku anagu si weyn buu noo taabtay oo halgankiisu meeluhu ka halgamay bay ahayd gobolku marka ma sha Allah yaani aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay soo dhawaada marka hore Saki waa ku salaamaya mar labaadka waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa caa'iladii ka soo farcantay daraawiishta ama Sayid Maxamed Cabdulla Xasan daraawiishun baan anigu oran karaayo wixii daraawiish ahaa waa caa'iladii sayidka run ahaantii anigaygana caa'iladii ehelkii baan ka mid ahay marka horta Hargeysa waa isku soo dhaweynaynaa gacmo furan waan jeclaan lahaa maanta inaynu halkan ka ambabaxno taleex tagno taleex waa meel in fact runta marka la sheego taariikh badan taalo inkastoo oo say u burburtay burburka wadanka way ka horeysay oo 103 sano ayaan filayaa taleex ay duqeeyeen diyaaraduhu inta ay ka soo wareegtay markii isticmaalku rusheeyay markaasay burburtay runta marka la sheego ilaa waqtigaasna wax laga qabtay ma jirto iminka se waxaanu xaarxaarnay goobihii sayidka xarumihii waxbaanu ka qabqabanay waana in fact dawladda Soomaaliland iminka gacanta ay kula jirtaayo inay si fiican wax uga sii qabato ayay doonayaan inkastoo ay fog tahay
oo wadda la'aani jirto laakiin marka la tago wax badan baa laga soo faa'iidaya reer sayid maxamed cabdulla xasan aad baan ugu faraxsanahay ehelkaygii idinkoo ah in aan maanta idinku soo dhaweeyaa halkan oo ay la joogaan waliba xildhibaanadii qaranka rag ka mid ah iyo abwaankii noogu weynaayo isaga taariikhda haya siki aad baad u mahadsan tahay waan soo dhaweynaynaa mar labaadka innagoo ka wada hadli doona insha allah innagoo joogna Taleex تفاح محمود عبد الكريم سيد محمد عبد الحسن نمعان محمود عبد الكريم سيد محمد عبد الحسن يا عبد الفتاح محمود عبد الكريم سيد محمد عبد الحسن ayaa ka waramay socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland aniga waxa la yiraahdaa Abdi Fataax Sayid Maxamuud Sayid Abdi Kariim Sayid Maxamed Cabdulla Xasan marka kood Ilaahay baa mahad iska leh marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sida xildhibaan Mukhtaar xildhibaan Mubaarak iyo abwaan Maxamed Badal oo magaalada Hargeysa nagu soo dhaweeyay waxaan kaloo u mahad celinayaa saxaafadda ay nagala joogto Royal TV aad baan salaamay idinkana Horyaal annagu soo sheegay abwaan Badal meesha marti kuma nihin naantii dhulkanagii iyo dadkanagii baan u nimid taariikhda daraawish meesha ka bilaabatayna waa dhulkan weeye meesha sayidka ku dhashay halganka ka bilaabay taariikhdiisa oo idilna ay ku aasan tahay waa dhulkan Soomaaliland weeye marka aad baan soo dhaweynayaa sidan quruxda badan ay noo soo dhaweyseen marka insha Allah de dhulkanagii oo nimid weeyaan Abdi Fataaxow marka la yiraahdo dhashii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa Hargeysa joogta dadka Soomaali oo dhan waxa laga yaabaa maanta waxa ay is weydiinayaan goorma soo noqonaysaan dad badan baa u baahi qaba inay xuun ka ogaadaan oo ay arkaan ehelkii bal ka waran goorma doonaysaan inaad arinta anba qaadaan insha Allah nooleysaan taariikhdii awalna ma maqla haddana waa joognaa ubax Yuusuf Cilmi dhanka hooyada waxaan ku uga mahad celinayaa soo dhaweynta wanaagsan ee xildhibaanada iyo abwaanku ayna soo dhaweeyeen magaalada Hargeysa awalna magaaladayadii bay ahayd haddana dadkanagii baa u nimid insha Allah waana ka ambaqaadi doonaa taariikhda sayidka sidii aan ila Taleex u tagi lahayn insha Allah mar dhow hadii Ilaahay horana waa u socotay haddana waa sii socodsiinayna magacaygu waa Tufaax Maxamuud Sayid Abdi Kariim Sayid Maxamed ma soo koobi karo shucuurteeda iyo farxadeyda aad bay u mahadsan yihiin xildhibaanada iyo abwaankeena Maxamed Badal iyo idinka oo saxafiyiinta ah dee Hargeysa waa dhulkanaga oo nimid waa markii noogu horeysay waana ku faraxsanahay wanaag badan iyo soo dhaweyn badan waa kala kulannay insha Allah sidoo xildhibaanku sheegay Mukhtaarna waanu ilaa Taleex waan socon doonaa hadii magacaygu waa Nimco Sayid Maxamuud Sayid Abdi Kariim Sayid Maxamed Cabdulla Xasan horta marka hore Allah subhanahu wa ta'ala mahad iska leh marka labaadna xildhibaanadeena sharafta leh iyo abwaankeena Maxamed baan u mahad celinaynaa iyo saxafiyiinta duubayo Hargeysa waa dhulkanaga meelaha marti ku nahay maaha oo meesha halganka daraawiishta ka bilaabatay weeyaan insha Allah ta'ala shucuurteena aad bay maanta u sareysaa anagoo safar si aan nala kulanteen waana soo noqon doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo Ahmed Saki Ibrahim wararka Horyaal Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed